Hakan Sarkar waa gooldhaliyaha ugu weyn Turkiga wuxuuna ka mid ahaa weeraryahanadii loogu jeclaa qaaradda Yurub si kale kuma garatide waa haliyey haddaba ninkan dalkiisa laga jeclaa lacagta badanna lahaa sidee buu ku noqday tagsiile arsaaqad ka raadiya tagaasida iyo iibinta buugaagta ka sheekaynaysa nolosha dalkaasi Mareykanka waraysi uu siiyey wargeeska axadlaha ah ee dalka Jarmalka lana yidhaa Welt am Sonntag ayuu 48 sano jirkani ku sheegay inuu la kulmay xaalad adag kadib markii uu ciyaaraha ka fadhiistay sanadkii 2008 Hakan ayaa waxa uu ku andacooday in uu khilaaf la galay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaas oo daaha ka qaaday hanjabaadyo dil ah eedeymo been abuur ah iyo dhaqaale helitaan la'aan waxba iima hadhin Erdogan wuxuu qaatay wax walba xuquuqdayda xorriyadda hadalka iyo xaqaan u leeyahay inaan shaqeeyo ayuu u sheegay wargeeska Sarkar wuxuu dhaliyay 51 gool 112 kulan oo uu u saftay dalkiisa Turkiga intii u dhaxaysay sanadihii 1992 iyo 2007 kadib markii uu ciyaaraha ka fadhiistay wuxuu galay siyaasadda sanadkii 2011 Sarkar wuxuu ku guuleystay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka dalka Turkiga isagoo ka soo baxay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee madaxweyne Erdogan ninkan ayaa sidoo kale ku xidhnaa Fethullah Gulen kaasoo madaxweynaha Turkigu uu ku eedeeyay inuu ka dambeeyay isku daygii afgembi sanadkii 2016 Sarkar markii isku dayga inqilaabku dhacayay wuxuu joogay dalkaasi Mareykanka uu dhaleeceeyay isku dayga afgembi balse warbaahinta dawladda Turkigu maamusho ayaa ku sheegtay inuu isaga laftiisu yahay baxsad kana tirsan yahay ururka FETÖ guriyihiisii qaaliga ahaa meheradihiisii iyo xisaabihii bangiyada uga furnaa ayay la wareegtay xukuumadda dalka Turkigu inkasta oo uu imika ku nool yahay guri 3 milyan oo dollarka Mareykanka qiimihiisu dhan yahay kuna yaala goobta aadka qaaliga u ah ee Palo Alto San Francisco Bay Area Sarkar ma aha mid niyad ahaan degan